إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. شيخ lagu magacaabo sheekh Shacbaan oo aad u wanaagsan markaad aragtid aad jeclaanaysid ayaa maalmaha ka mid ah fi Ramadaan wuxuu nagu soo booqday في مسجد سماحة الوالد المقري شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي شيخ صلاة النتوجي صلاة كدب شيخ وحو أركي شيخ شعبان وجوغو كرسي الله صوت لي وحال داي لبا كلمة وجيدي كلمات كي لبا قصو كشاقي آت إسو جيدتي لبا ذا قصة وحي تعلقان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام شيخ شعبان وحو دا مدينة منورة تقي marka madiina tagay waxaan aragnay fi xaram madani waxaan ku aragnay sheekh culimada Suuriya kamid ah waan ku dhignay oo nin adkaar badan oo mashquul badan markaas ilaahay xusaayo waan qabano waxaan ku dhahnay laba kelimo noo sheeg tanfa'una wala tadurruk wana fadhiisi markaas wuxuu xasuusi u dhahay hal hadith qala alayhi salatu wassalam nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkii subaxdii 10 jeer igu saliya galabtiina 10 igu saliya maalintii qiyaam waxaan u noqonaa shafiic oo ilaaha uga shafaaca qaada janna soo ogalo markaasuu dhahay i'malu bihi ku amal fala xadiidkaas wana naga ordoodaa sheekhi war kale muusan dhihinba waa nin aad war u nacab sheekadu nacab qiila wa qaala nacab labada xadiidkaas noo sheegay wana dhaqaajiyo waana xadiid weyn wax ka weyn ma lahan waayo haddaad umuurtaada ilaahay kuu xalin inuu kuu xalin arabtid calayka bisalaati cala nabi sal alla alay wasalam xadiidkii watii u ahaa idan yukfaa hamuka wa yugfaru danbuk haddii salaadaada dhan ka dhigtid salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadaada salligii nabiga ka dhigtid yukfaa hamuk waxa murugku hayo fi dunya walaakhira ilaahay ka kaafinayo wa yugfaru danbuk dembigaaga dhanna ilaah baa kaa daadinaya subxaana wa tacaala qisada labaad waxay u sharaf u tahay ahlu Soomaal sheekha wuxuu dhahay anakoo ku baxsan dawxa 40 cisho fi sabiilillah ayaa masaajid aan joogna waxa soo galay wiil Soomaaliya wajigiisa nuur aan ka dareemay qofka dareemay nuurka waa carab kan laga dareemay waa afrikaan markaas uu soo dhawaado dhawaan zaawiyat masjid geesan ula baxay waxaan ilaahay ku dhaariyo dhahay inuu run ii sheego waxaan weydiiyay inuu run iiga sheego run ii sheego kayf aadan ku weydiiyay maxaad qabataa almuhim qisada nihaayada sheekh wiilkii Soomaaliga ahaa wuxuu dhahay maalin kasta nabi Muhammad waxaan ku saliyaa 10,000 oo jeer kun ma 2,000 ma 10,000 oo jeer markaas waxaan dareemo dhahay wixii culeesoon dareensanahay mas igu soo wajahana mas iqabsadaba ilaahay inuu iga fududeeyo subxaanahu wa ta'ala marka walaaliyaal nabiga qof kasto ka salli badan qofka ugu salliga badan oo nabiga ku salina calayhi salaatu wasalaam qof ka nuur badan ma jiro xaaladiisana maqdi way ilaah ba u fulna wuxuu u baahan yahay shafaacada nabiga sallallahu alayhi wasallam wahdi hadii 10 jeer shafaacada nabi maxamed lagu helayo maalintii 20 jeer shafaacada lagu helayo 10,000 jeer ka waran marka wax kala mid ah ma jiro marka aan ku dadaalno salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu soo dardaaranno. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.